annagoo joogna garoonkii Xaaji Daahir Stadium oo halkan mas'uuliyiintii wasiirkii maayarkii xildhibaankii waxaanu halkan u nimidnay inaanu soo eegno amba maad aragtay soo xogaal wareysano qaabka uu socdo dayrkii dumay oo si habsami oo wanaagsan u socda maayarkuna ay roobkii maad aragtay roobkii maalmihii dhaweytoolo u daayo saameyn ku yeeshay dayrkaas oo dayrka ku wareegsan garoonka oo maad aragtay ku iska xajinaya roob walbo yimaada iska xajinayana maaha waa ku dayrku taagan yahay laakiin roob u falay haduu yimaado waa ku saameyntiisa leh taasoo markaasi xukuumadda iyo maayarkuba ay ballan qaadeen maayarkan Ilaahay khayr siiye uu gunta dhiisha iskaga dhigay maalintii uu roobku dumiyay maalintii ka dambeysayba oo hawlgalkeedii uu bilaabay inta ka bacdi madashaan joogna waa garoonkii weynaa Xaaji Daahir waa mashaqadii barwaaqadii iyo roobkii ka dhacday intani waa hawl yar ilaahay mahdi weyn haduuna garoonka biyo gelin laakiin hufadii un baa taabatay waxaana mahad ballaaran recovery-ga iyo dib u samaynta ugu mahad celinaya golaha deegaanka iyo gudoomiyaha golaha deegaanka iyo cid kasta oo gacan ka geysanaysa in garoonka koowna taagnay laakiin u baahan in la garab qabto gudoomiyaha golaha deegaanka sida kadiska wasiirka wasaaraddu waxaanu imka joognaa garoonkii weynaa ee gobolka Awdal waxa weeyaan garoonka oo maalmihii dhaweed ay ka soo gaadhay nimcadii inagu dhacday alxamdulillah ilaahay baan ugu mahadlay nimcadaasi ayaa intani inaga soo gaadhay oo ah garoonka oo gees ka dumay waxana weeyaan dadka maalintii roobku daay maalintii ka dambeysay meeyarka halkan waan ka daawanaya anigoo Hargeysa jooga oo uu leeyahay intan anaa ku filane waar dadweynaha kalow dibad iyo dalba ka soo qayb gala dhismaha garoonku dhamaantii wada dumayay marka waxaan wasiir aad iyo aad ugu hambalyeynaya meeyarka oo arinkaasi naga dulqaaday hawl maalmeedkayga shaqo wasiir hawshan maalintii dhaweyd 3 cisho ka hor garoonka waxa ku dhacay roobkii dabaysha lahaa nimco waliba nusqaan ayaa taabtay inta baa duntay maalintii labaad ba waan bilownay hawshiisa way socotaa mashruucan waxa ku baxaya $12,000 injineer hori baa fulinaya garoonku markii hore wuxuu u dumiyay waa la cameeyo kaabadaha imkaan gelinayna kuma jir shubka imkaan shubnay foundationku ma laha shubkii sarena ma lahayn jaajuur la saareen baa garoonka intiisa kalena in wax laga qabto u baahan tahay marka waxa loo baahan yahay inaga oo iskaashanayna xukuumadda iyo dadweynaha in garoonka intiisa kalena la daayactiro awalba nuqsaan leh waxa weeye munaasabadda imka halkan aan dul taaganahay waa dayrkii garoonka Xaaji Daahir marka hadii aanu muxuu maayarku markiiba ka hawl gelina sidan way baabacsanaan lahayd oo iyadoo sidan imka uma inaanimaadne waxa marka hore xusid mudan ama kulay mahad celin mahad Ilaahay baa iska leh laakiin marka labaad waxaan u mahadnaqayaa maayarka magaalada oo markiiba muxuu ka jawaabay yani maartay garoonka dhibaatada soo gaadhay nimcada Ilaahayna siiyay roobku muxuu soo gaarsiiyay dabiiciga soo gaarsiiyay umana baahna in muxuu propaganda iyo laga sameeyo muxuu waxaan muxuu soconaynin laakiin waxaan runtii aad iyo aad ugu bogaadinayaa uguna mahadnaqayaa maayarka degmada inuu markiiba muxuu jawaab ka bixiyay muxuu bilaabay dhismihii iyo shubkiina imika u socdo aan dul taaganahay oo aragtaan muxuu taas waxa weeye kulay la shukr cala alwaajib mas'uuliyadiisa iyo shaqadiisa bay ahayd laakiin mas'uuliyadda iyo shaqada dadku muxuu sida ugama wada jawaabaan waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa maartay sida degdeg ah ee muxuu markiiba jawaabta uga bixiyay una bilaabay inuu repair gareeyo muxuu dayrkii muxuu roobku dumiyay